subax wanaagsan daawada halkan waa janalka xulashada wararka waxaad ku soo dhawaataa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya waa subaxnimo Arbacada taariikhdu ku aastaysan tahay 28ka bisha Abriil 2021 qodobada xiisaha badan ee subaxnimada daawada doontan waxaa ka qayb noqonaya dhaqdhaqaaq ciidan oo wali magaalada Muqdisho ka soconaya xilli xubnaha mucaaradka ciidamada taabacsan ee midowga guddoonsan ay sameysteen aag cusub oo difaac ah haddaba suurtagalnimada iyo sidoo kale wararka sheegaya dhaqdhaqaaqooda ay balaariyeen iyo xogaha rasmiga ah ee ku saabsan dhaqdhaqaaqa ciidan ee Muqdisho ka socda waa daawada doontaan sidoo kale madaxweyne Farmaajo waxa uu hortagayaa maalin Sabtida ah baarlamaanka Soomaaliya si uu ula wadaago xaaladda soo kortay kadib khudbad uu jeediyay ayuu kaga hadlay xaaladda Muqdisho sidoo kale sheekadii muddo kororsiga haddaba baarlamaanka iyo sidoo kale muddo kordhintii halka ay ku dambeysay sidoo kale waxa uu ka yidhi shaqooyinkii ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa daawado doontaan Puntland iyo Jubbaland war adag ayay soo saareen xaaladda Muqdisho ku qatantay iyo sidoo kale suurtagalnimada in dib loogu laabto teendhada Afisiyoni oo wadahadaladii ka socday dowladda hore u sheegtay inay fashilmeen qorqorna waxa uu sheegay in galmudug mowqifkeeda markii hore buu ahaa inay ka soo horjeesto muddo kororsiga wareysi uu bixiyay kadib warqadii ay soo saareen isagii hogaamiyaha Hirshabelle kama qaramada midowga Mareykanka iyo midowga Yurubna waxa ay bogaadiyeen dabaha kale ee siyaasadda Soomaaliya soo wajahay xilligan maadaama dadka Soomaaliyeed ay u riyaaqeen inkastoo meelo ka mid ah magaalada Muqdisho wali ciidanka dowladda iyo ciidamada mucaaradkana ay isku fadhiyaan qodobadaas iyo kuwa kale oo aad u xiiso badan ayaa daawado doonta haddii tahay markii ku horeyso soo booqatay channelkan fadlan subscribe noo saar muuqaalka like gambarka furo mahadsanid ayaan ku raacineynaa Ramadan al-Kareem isku soo noqod wanaagsan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wali waxa ka soconaya dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xooggan waxna ciidamada mucaaradka ay sameeyeen difaacyo cusub aaga xaafadaha ku tirsan Fagax Tawfiiq iyo meelo ka mid ah isgoyska Sarca iyo difaacyo hor leh ka sameysteen ciidamada militariga guddoonsan ah ee muddo kordhinta diidana isla markaana mucaaradka sida aadka u taageersan waxaa la soo dhigay sawirro iyo muuqaalo ciidamadan oo gaadiid dagaal iyagoo infantry ahaan u socday isla markaana cala tuur dhigaya meelo ka mid ah isgoysyada muhiimka ah ee magaalada Muqdisho dhinaca waqooyi waxaana isgoyska Fagax meelo ka mid ah cara ay ku jireen iyaga oo sheekada sii adkeeyay hubruursi xooggan ayaa socda maadaama ay sheegeen xubnaha mucaaradka in la isku halay karin dowladda Soomaaliya isla markaana wax walba ay ka iman karaan iyadoo oo taasi ay jirto haddana kacdoonka iyo barakaca ka jira magaalada Muqdisho ayaa ah mid maalinta ka dambeysa shacabahaya maadaama la isku fadhiyo magaalada meelo ka mid ah oo furin ay u eg tahay isgoyska dabka meelo ka mid ah saacadii la soo dhaafay xabado ayaa ka yeerayay maadaama meelahan sidaas uga fogeyn ay joogaan ciidamada ka amar qaata mucaaradka oo ah military guddoonsan lama oga xaalka xilligan sida uu yahay marka laga reebo jawiga uu degan iyo abaabulka kale ee socda balse waxaa loo dhagtaagayaa sheekada halka ay ku biyo shuban doonto madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo war ayaa ka soo baxay oo ku aadan arrinta doorashada iyo sidoo kale in dib ugu laabanayo baarlamaanka madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa jeediyay khudbad uu ballan qaaday saacado ka hor waxaana maamul goboleedyadii uu taabacsanaa isaga ee Hirshabelle iyo Galmudug ay ka soo horjeesteen muddo kororsiga uu baarlamaanka sameeyay 12kii bishan Abriil aan ku guda jirno madaxweyne Farmaajo ayaa ugu horeen weerar afka ku qaaday dowlad goboleedyada qaar iyo dowladda shisheeye uu sheegay in caqabad ku yihiin dalka oo doorasho nabdoon ka dhacda waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo baaqyadii saacadii la soo dhaafay iyo soo baxayay kaga aadanaa arrimaha muddo kororsiga shacabka Soomaaliyeed waxay kala ogaanayaan cidda ka shaqeynaysa in aysan doorasho dhicin dowladnimo la burburiyo ee cidda u helinaysa nabadda qarannimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed ayuu khudbadiisa ku yiri Farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in maalinta Sabtida ah ee toddobaadka soo socda fowda nagu soo hay uu hortagi doono xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya si uu mar kale u horgeeyo arrimaha ku soo kordhay doorashooyinka dalka
maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka ayna waajib tahay in aan isku dheelitiro heshiiska siyaasadeed ee horey loo gaaray iyo sharcigii ugu dambeeyay golaha shacabka meelmariyeen. Waxaa maalinta sabtida ah hortagaya golaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya si dalka dib loogu celiyo hanaankii doorasho ay ku heshiyeen madaxda federaalka iyo dowlad goboleedyada, kaas oo ah heshiiskii doorashooyinka Sebtembar 2020. sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa saxiixayaasha heshiiskii 17 Sebtembar ugu baaqay in ay shir degdeg ah isugu yimaadaan si loo saxiixo qodobada harsan iyadoo aan lagu xireynin wax shuruud ah si loo gudagalo hirgelinta doorashada. anigu ka dowlad ahaan waxaan diyaar u nahay in la qabto doorasho aan shuruudo ka xirnayn oo saldhigeedu yahay heshiiskii hore loo gaaray 17 Sebtembar 2020 iyo tala bixintii guddiyada farsamo ay ku gaareen magaalada Baydhabo 16 Febraayo 2021. madaxweyne Farmaajo ayaa ugu dambeyn ugu baaqay dhinacyada Soomaaliyeed in la joojiyo wax kastoo dalka u horseedi kara xasilooni daro, isagoo faray hay'adaha amniga inay ilaaliyaan xasiloonida caasimadda iyo badqabka shacabka barnaamijyada ah, isla markaana laga fogaado wax kastoo dhalin kara qalqal amni. Shacabka Soomaaliyeedna waxa uu sheegay in arrinkaasi looga baahan yahay inay ku garabsiyaan ciidanka qarabka sida. intaasi kadib qoraal ka soo baxay xafiiska guddoonka golaha shacabka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xildhibaanada ay sabtida kulan leeyihiin, isla markaana kulankaasi lagu baaqay dhammaan xildhibaanada inay xaadiraan. lama oga kulanka sabtida ee golaha shacabka waxa ka soo bixi kara maadaama dhinacyada siyaasadda xilligan hadallo kala duwan iyo sidoo kale jawi kale oo siyaasadeed ay bixinayaan. markan dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland qoraallo ay soo saareen waxa ay sheegeen inay ku soo dhaweynayaan qoraalladii ka soo baxay ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabelle. Puntland ayaan ku bilaabeynaa waxa ay ku bilowday qoraal ay soo saartay. Puntland waxay ka xuntahay dhacdooyinka amni darro ee ka dhashay dagaaladii Muqdisho ka dhacay maalmihii la soo dhaafay, waxaana cid walba oo waxyeello gaartay ay uga tacsiyeysay. Puntland waxaa qoraalkeeda lagu yiri waxaan ku baaqaynaa dhammaan qeybaha kala duwan ee quseysay in dib loogu laabto wadahadalladii doorashada si heshiis loo gaaro fulinta heshiiska 17 Sebtembar 2020 in uu horyaalo, isla markaana howsha loo baahan yahay in la qabto iyadoo ku dhacaysa si nabad ah wada ogolna ah. Puntland waxaa lagu yiri qoraalkeeda waxay ugu baaqaysaa midowga musharaxiinta, siyaasiyiinta, ururada bulshada rayidka iyo dhammaan qeybaha bulshada ah inay gacan ka geystaan ilaalinta xasiloonida dalka iyo sidii looga miro dhalin lahaa qabsoomida doorasho wada ogol ah. dhanka kale Jubbaland waxaa warqadda ka soo baxda lagu sheegay inay soo dhaweyneyso go'aanka ay qaateen Galmudug iyo Hirshabelle, kaas oo ay ku diideen muddo kororsiga ay sheegeen sharci darro ah, isla markaana doorashada waxa ku saabsan ay u aaminsan yihiin heshiiskii 17 Sebtembar oo kaliya. Jubbaland waxay ciidamada ugu baaqday sidoo kale qoraal ka soo baxay madaxtooyada maamulkaasi in aysan fulin haddii la siiyo amaro hareer marsan sharciga, isla markaana aysan ku milmin siyaasadda. markan Axmed Cabdi Kaariye qorqor wareysi uu siiyay VOA-da wuxuu kaga hadlay arrintan soo korortay ee muddo kordhinta ay ku diideen isaga iyo sidoo kale Hirshabelle hogaamiyaheeda Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe. waxaana uu yiri waxaan rajeynayaa in dhibka xilligan ka jira Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho in xilligan intaan uu ku istaago, balse waxaa labood ogyahay mowqifka Galmudug ee kaga aadan muddo kordhinta in markii horeba banaanka uu yaalay, isla markaana hore aan u qorsheynay in danta ummadda Soomaaliyeed waxaan ku jirin in aanan ka shaqeynin. waxa uu yiri madaxweynuhu aragtidiisa iyo mas'uuliyadiisa ayuu leeyahay, marka anaga mowqifkeena ayaa qaadanay iyo sida ay nala aheyd ayaan wax u soo gudbinay oo mowqifkeena ayaan soo bandhignay. taasina madaxweynaha jab kuma ahan oo isagana ay mowqifkiisa siyaasadeed u gudbiyaa. haddaba qaramada midoobay iyo dowladda Mareykanka waxay bogaadiyeen go'aanada ay qaateen dhinacyada siyaasadda Galmudug iyo Hirshabelle iyo ra'iisul wasaare Roble, maadaama Muqdisho fariimo xun ay ka imaanayeen, isla markaana laga baqdin qabeen dagaal mar kale uu ka qarxo. xafiiska UN ee Soomaaliya waxaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wuxuu la socdaa
bayaanada ay soo saareen Qorqor Guudlaabe iyo Maxamed Xuseen Roble waxayna cadeynayaan mowqifka beesha caalamka ah ee wada ogol in loo yahay muhiimna u tahay doorashada hanaanka Soomaaliya ay ku qabsoomayso. waxaa fariinta qaramada midoobay lagu sheegay in kaliya heshiiska 17 Sebtembar inuu yahay mid isla qaateen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada kaasina lagu shaqeynayo. waxaana dhammaan dhinacyada loogu baaqay in gacanka hadalka ay ka laabtaan isla markaana dib wada hadalka loo qaado. dhanka kale safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa bogaadisay tallaabada ay qaadeen madaxda kala ah Qorqor Cali Guudlaabe Roble waxaana lagu yiri waxaan ku boorinaynaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu aqbalo wada kasta oo wada hadalkii nabadda ah isla markaana uu soo gabagabeeyo howshan kale oo faraha uu kula jiro. dhanka kale wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Berlanga ayaa isna fariin ku qoray bartiisa Twitter-ka waxa uu ku amaanay dhirnaanta ay muujiyeen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo hogaamiyaasha maamulada Galmudug iyo Hirshabelle ee ku saabsan in doorasho wada ogol ay wadanka ka dhacdo. Berlanga ayaa sheegay in gacanka hadal aysan meel uga banaaneen Soomaaliya jidka keliyana u furan uu yahay wada hadal doorasho wada ogolnaana in dalka ay ka qabsoonto. guudaan qodobkaas u dambeeyay warka subax ee janaalka xulashada wararka ku maasan tahay daawashadaada. haddii tahay markii ku horeyso soo booqato janaalkan fadlan subscribe noo saar muuqaalka la Greg Gambrelka furo si xogaha halkan aan soo gelino waqti waliba aad ula socoteed inta kulmi doona warceenkan oo kale inta nabadgelyo Ramadaan ul Kareem.